munaasabadan ay ku qalan jabinayeen difcadii koobaad ee ciidanka qaranka ee dhamaysata tababarka commandoska loo yaqaano amaba sida gaarka ciidamada loo tababaray iyo xidhitaankii waxa lagu qabtay dugsiga tababarka ee Madheera. Talabadan ayaa ah mid dila xambaarsan waxaana muujinaysaa tallaabooyinka dhinaca horumarineed ee noocyada kala duwan leh ee Somaliland ka hirgalay muddooyinka ugu dambeeyay kuwaas oo ciidamada qarankuna ay ka mid yihiin danta qarannimo waana difaaca dalkan iyo dadkan Jamhuuriyadda Somaliland. Munaasabadan oo ahayd mid si weyn loogu diirsaday ayaa waxa ciidankan kala soo qayb galay xidhitaanka tababarkan taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland General Ismaaciil Shaqale, mas'uuliyiinta madaxa tababarada ee ciidanka qaranka iyo waliba xubno kale oo kamid ah saraakiisha dugsigaasi. taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland General Ismaaciil Shaqale ayaa ugu horeyn hambalyo u diray ciidamadan dhameystay tababarkan iyo maamulka dugsigan tababarka ee Dararweyne, waxaana ujeedada tababarkan ku saleeyay in ay sal u tahay difaaca qarannimo ee Somaliland. taliyuhu waxa uu soo jeediyay inay u diyaar noqdaan gudashada waajibaadka shaqo ee qarankan dusha ugu riteen. waxa kale oo taliyuhu intaasi ku daray in ciidamadan ay qaateen tababarkan oo noociisu yahay mid casri ah isla markaana tusaale wanaagsan ay u noqdaan qarankan Jamhuuriyadda Somaliland. taliyuhu waxa uu sheegay in Somaliland ay jiraan bariyahan dambe dad caadaystay inay ku soo gardaroodaan kuwa laga rabo inay u jawaabaan ay yihiin iyaga iyo ciidamada kale ee ka sii horeeyay. waxa kale oo isna halkaasi taliyaha ka hor ka hadlay madaxa hoggaanka tababarka ciidanka Axmed Tansani, waxaanu isaguna ka warbixiyay tababarkan ay qaateen ciidamadani. waxaanu sheegay in ciidamadani ay yihiin kuwa si gaar ah loo tababaray lana siiyay tababaro casri ah. waxaanu sheegay in ciidankani ay tayo iyo farsamada ay yihiin kuwa istaahila inay gutaan waajibaadkaasi qaranka ay xil saaran yihiin. waxaanu soo jeediyay in ay u gutaan waajibaadkaasi sida ugu habboon isla markaana ay ka faa'iideystaan ugana faa'iideeyaan dalkooda iyo dadkooda aqoonta halkan ay ka kororsadeen. taliska guud ee ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa deeq ari ah oo dhan 200 oo neef oo ariga ka gudoomay maamulka degmada Alleybaday oo shacabka ku dhaqan degmada Alleybaday ay ugu talagaleen in ay ugu deeqaan ama ay ku taakulayaan ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland. deeqdan ariga ah oo ay taliska guud ee ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland ay soo gaarsiiyeen maamulka gobolka Gabiley iyo kan degmada Alleybaday ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta ee Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Axmed Xaashi Nuur Oday, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Maxamuud Cabdi Ismaaciil iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha mudane Cabdilaahi Balaaga. waxaana deeqdaasi ka gudoomay taliyaha ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland General Ismaaciil Maxamed Shaqale. munaasibadan oo lagu qabtay xarunta taliska ee magaalada Hargeysa ayaa taliyaha ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland uu u mahadnaqay maamulka gobolka iyo degmada Gabiley iyo shacabka ku dhaqan deegaanadaasi isu xilqaamay in ay ciidamadooda qaranka ee sugaya dalkooda iyo xuduudahooda ay ugu deeqaan deeqdaasi ariga isaga oo u diray baaq kale shacbiga kale ee Jamhuuriyadda Somaliland in ay ku daydaan degmada Alleybaday. gudoomiyaha degmada Alleybaday iyo barasaabka gobolkaasi ayaa iyaguna waxa ay tilmaameen in ay hil iyo hooba la garab taagan yihiin ciidamada qaranka isla markaasina deeqdani aanay ahayn tii ugu dambeysay ee ay noqon doonaan deeqo kala duwan oo istaba socda. wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa tilmaamay in xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ee haatan jirta ay mar walba ay maanka ku hayso in ay nabadgelyada wax kasta oo ay ku bixinaysa aanay waxba ku doorsan isla markaasina ay xaaladda dagaal tahay mid ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland ay iskaga difaacayaan cadow ku soo duula. gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha oo iyaguna madashaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in deeqdani ay tahay mid aan intaasi ku dhammayn ee ay tahay deeqa istaba socda iyo tallaabooyinkii looga bartay shacabka Jamhuuriyadda Somaliland. dhacdooyinka noocan oo kala ah marka ay Somaliland ka dhacaan ayaa shacabka Somaliland ganacsatada xoolo dhaqatada iyo magaalaba waxa ay isu garab galaan taageerida iyo garab istaagida ciidamada qaranka ee